بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعل صاحبة قيمها قدرلتا يقايها لقى مدلو ميل البؤد جوكتالي مرحلة البؤد لقو داو ليسان وحال هودة دكالي هاي رمضان مبارك على خير خلقي محمد مختاري. maanta waa maalintii 24aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa Allah awood leh haduu raali ka noqdo muuqaalkeena aan ku dul istaagi doonaa qeexida soonka haweenka. quraankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xariirkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko. waxaan eegi doonaa sharaxaad iyo sidoo kale talooyin fudfudud oo wax ku oola oo ku qotama haweenka iyo sidoo kale jikada cirdiga xeydka ama sidoo kale xilliga umusha ayaa daawadayaal wax ul ka taaban doonaa. dhadhaminta cuntada sharaxaad gaar ah ayaan daawadayaal idin heelaa oo ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan inta markaa lagu guda jiro iyo sida markaa ay tahay in haweenku ay u maareeyaan xigmadaha markaa la xiriira naxariista naftana kama marla oo muuqaalkeena ayaan idinku soo baahin doonaa. qodobada kale aad maqli doontaan oo muuqaalkeena ku dul istaagi doono waxaa kamid ah talooyinka markaa quruxda iimaanka la xiriira. qodobadaas ayaan daawadayaal diiradda saari doonaa oo maanta muuqaalkeena aan ku korfeen doonaa ee soo dhawaada saaxiibayaal. mar kale kula wacan saaxiibayaal muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay qeexida soonka haweenka. maantana waa maalintii 24aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. soonka haweenku waa sidoo kale waa ka fogaanshaha cuntada cabitaanka marka laga bilaabo waa berigii ilaa iyo qorax dhaca iyadoo ay shardi tahay in haweeneydu ay ka nadiif tahay dhiigga ama xeydka sida markaa qof walba uu u yaqaano ama caadado iyo sidoo kale nifaaska ama umusha. haddii xaaladahaasi ay jiraanna alla waa u fududeeyey oo markaa way afuri kartaa dib ayayna markaa ka soo gudi kartaa soonka maalintaasi. haddaba sharaxaad kooban ama talooyin markaa fudfudud oo wax ku oola haddii ay la eeglo jikada ha ka dhiganin xabsi cibaadada markaa ka horjoogsada. haween badan ayaa dareema in waqtigii uu jikadu markaa ku dhammaaday. talo marka aad cuntada diyaarinayso carabkaaga markaa hala qabsado digriga iyo in markaa aad tiraahdo subxaanallah alxamdulilah adiga oo markaa ridaya ama karkarinaya cuntadu waxay markaa taasi ay ku kordhinaysaa ajirka oo waxaad ka helaysaa ajir aad u fara badan. xigmada culimadu waxay yiraahdeen gacanta raashinka markaa karinaysa ee liyada ku haysa in markaa ay afuriso dad sooman waxay helaysaa ajir la mid ah qof kasta oo markaa afura. waa markaa meesha ajirka faraha badan markaa laga helo haddii niyadu ay saxal tahay. inkastoo oo aadan dukan karin soomina karin waxaad samayn kartaa ducada habeenada 10 dambe xitaa haddii markaa xeydku uu ku joogo habeenadan oo dhan waad ducaysan kartaa. habeenka oo dhan ducayso istighfaarka dembi dhaaf weydiishada Allah subxaanahu wa ta'ala mixirla xilli kasta. sadaqada in markaa aad qof wax siiso waa cibaado oo shardi markaa uma aha nadiifnimo ee ku dadaal walaal. quraankiyo
qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko haddaba dhadhaminta cuntada haddii aynu eegno waa su'aal ay haween badani markaa isweydiiyaan culimmadu waxay leeyihiin waxaa loo ogol yahay haweenaydu in markaa cuntadu ay ku dhadhamiso carabka caanadiisa si ay markaa u ogaato cusbada ama dhadhanka waa haddii aana markaa dhuunta marsiinin qur-aankiyo xadiiskiyo xuduudkii ilaahay xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko xanaaneeya diintoo xoogeeya soonko talo iska ilaali in markaa si xad dhaaf aad u dhadhamiso isticmaal keliya marka aad u baahan tahay bishaan sugayne ilaahayna siiye aynu saaciidayne sooma ramadaanta culimmadu waxay ku dardaarmeen in haweenaydu aanay lafteeda markaa ku dhibin wax ka baxsan awooddeeda haddii ay uur leedahay ama ay nuujinayso oo ay markaa u baqdo lafteeda ama ilmaheeda alle waa u ogol yahay in markaa ay afurto alle waxa uu jecel yahay in markaa addoommadiisu ay qaataan fududayn waa hagaage talooyinka markaa quruxda iimaanka la xiriira haddii aynu eegno ha ku lumin wakhtigaaga musalsalka ramadaanku waa 3 cisho oo keliya saacad kasta oo ka dhalataana waa fursad markaa dembi dhaaf afurka kadib ha ku mashquulin nadiifinta weelka oo keliya naftaada sii waqti markaa ay ku dugato taraawiixda ama ay ku akhriso ugu yaraan hal bog oo qur'aan ah su'aashina kiriyo xasiradka moodne sooma ramadaanta salawaatullaahi calaa khayri khalqi maxamed mukhtaari waa hagaage guud ahaan daawadayaal muuqaalkeennii maanta intaas ayuu inoogu egyahay maantana waa maalintii 24aad ee bisha barakaysan ee ramadaan tani inta muuqaal ka lamida aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ramadaan mubaarak bishaan sugayne samahariira naarti laga salaamad yeeshe sooma ramadaanta waa bishaan sugayne samahariira naarti laga salaamad yeeshe sooma ramadaanta